qaybta haddii aynu u tagno dumarka iyo Soomaalida waa arag badanaa aad baad uga hadashaa adoo bal nooga soo bilaabmaya taariikhdii aabbaha Alla ha u naxariistee iyo dee sidii uu markaasi ula dhaqmay Soomaalidii iyo nolosha adigoo soo koobaya kuna sii daraya Soomaalida hadda fikradda hadda jirta ee hablaheenuna ay haystaan ee feminismkii waxa iyada laftigeegana horta backgroundkayga haddaan kaaga sheekeeyo aabbaha iyo hooyaday waxay family yar baan nahay 4 hablood baan nahay marka Allah yarxamo aabbahay wuxuu ahaa wariyaashii ugu horeeyay af Soomaaliga ku hadlayay oo idaacadda Qaahira qaybta af Soomaaliga isaga haysan jiray 4 hablood baan ahayn waqtiga lama jecleen hablaha oo waxa la oran jiray qof walba inuu magaciisa sii jiro waxa fiican deeno inuu ma dhalo inuu wax u qabta iska daa waxaasoo aabahayna ma ahayn qof he was handicapped, he was landare marka qof walba wuxuu ku lahaaday inaan wax ku qabta inaan ku caawiya honestly aabahay waxa qof aad ugu faraxsan inuu habla dhalay wuxuu arkay inay jannada uu ku geliyo soo isagu ma bidibeen laakiin wuxuuna baray hablaad tihiin laakiin you can do everything wax walba waad qabsan kartaa wax walba waad samayn kartaan ilaahay baa idin maamusay already marka wax walba waad qabsan kartaan haddii aqoon tahay haddii shaqo tahay haddii karti tahay hablahana high attention to details imarka shaqadayda HR-ka waxaa ku fiican hablaha more than inamada because detailska iyo maxaan ku idhahdaa waxay u baahan tahay qofka inuu very attentive noqdo laakiin waxaan dareemay markuu aabbo yimid Hargeysa especially Qaahira iyadoo normal Hargeysa markaan yimid odayaashii oo kalba imanaya kule dee guurso hablahan maxaa islaantan haddana ku dhaleen dee gabadh kale guurso inaba ku dhasha influence-ka community-ga society everybody waxay ka hadlayaan inamada marka taa waxay gelisay difaac ina mar walba why loo leeyahay inamada fiican waxay gelisay I have inaan wax barto I have inaan shaqaysto inaan wax walba qabsado iyadoonan oranin ninku waxa weeye enemidayda imarka feminismka Hargeysa waxaad arkaysaa dadka waxay moodiyeen inay feminismka ay tahay inaad maanta dhan microphone qaadatid oo daraga u hanjabtid that's not feminism xuquuqdii aad lahayd uu ilaahay ku siiyay inaad difaacato oo haddaan lagu aqoonsaneen inaad ka hadashid ayaa feminismka saxda laakiin aad tiraahdeed ninku waa sida waxba iima ogola iyagaabad sii fugeynaysa that's horta opinionkayga imarka waxbaan kuu sheegaya sida dhaqanka Soomaaliga waa khalad dhanna wuu fiican yaho markaad gaariga wadid waxaad arkaysaa inaan muxtaramo wax oranaya waa inaan sida inaan kala ku xaasidaya waa naagta u dhiibay gaariga uu kugu kharibaya meesha marka labadaba way jirtaa culture-ka waan leenahay laakiin imanka I will have a car accident for example nin traffic police baa loo yeeraya markuu saa eega wuxuu oranaya nin u yeero nin ma odaygaagi ma aabaha ma walaalka but aniga ay ma bani aadam ila hadal caawi amba wuxuu oranayaa dee lacag badan ka qaado oo ninka uu ka baqayo ka xishoonaya laakiin haddii inan tahay ma u joojinayo ma ixtiraamiyo taasi waa waxyaabaha aanan ka helin for example imarka waxaa jira siyaasadda xoog buu uga xanaaqsan yihiin laakiin dumarka waa socodeynin runtaada la soo sheeg imarka waxay ku oranayaan dumarkii ma soo baxayaan siyaasad ma soo baxayaan laakiin gabadhii lafteedii awareness bay u baahan tahay in iyadu ku codeyso markuu codeynayso waxay oranaysaa in her mind ma naag baan u codey maxay ii taraysaa laakiin haddii dhinaca kale eegto iyadaa kaa naxaysa oo hooye oo garanaysa waxaad u baahan tahay oo services badan aad u baahan tahay ayay laga yaabaa inay dowladda kaaga soo qaado laakiin iyada maskaxdeeda maxaa ku jira naag dumaraan no marka the whole society feminismka khalad buu fahamsan yihiin female-ka waxay tahay khalad buu fahamsan yihiin awareness fara badan iyo barnaamijkan oo kale 100 jeer la duubo حتى waxaan oran kareynaa qofka markaynu taas ay kaga imaano nolosha caadiga ninkii xaaskiisa xuquuq noocay isku leeyihiin sidee ula dhaqmaan khaladaadka ka dhaca waalidka ee saameeya carruurtiisa maxay tahay